وسعودال إن كنت نستاجد دونا طريقة له الرماء عجيبة أو قارة وحنو ديرت صار دونا لولا تاريخ لياب له يقام نولد كدوان ميت كعادية ليتوانيا ودل عو قوي يوروب وانا جمهورية عصرها ودولة كوبان بس كلن ستيد دقالة تكنولوجيا يوح برشتها له داود أنا لتشوق إلى دماتكم وقالك سيادو برتو قام نولد كشعب حرقة مدشن يصدن سنة أوكريا ليثوانيا waxay ku taalaa waqooyi bari Yurub gobolka loo yaqaan Baltika waxay xuduud la leedahay Latvia oo dhinaca waqooyi ka xigta Belarus oo dhinaca bari iyo koonfur bari kaga beegan Poland oo dhinaca koonfur galbeed ka xigta halka gobolka Kaliningrad ee Ruushku kaga beegan yahay dhinaca galbeed sidoo kale Lithuania xeeb dheer ay ku leedahay badda Baltika dalku wuxuu ku fadhiyaa dhul dhan qiyaastii 65,300 kilomitir square ah taasoo ka dhigaysa dalka ugu weyn saddexda wadan ee Baltika Lithuania waxa ku yaala kaymo ballaaran harooyin badan iyo dhul beereed aad u weyn dhulka quruxda badan ee dalkaas ayaa ka dhigay meel aad loo jecel yahay xilliyada dalxiiska Lithuania waxa ku nool qiyaastii 2,800,000 oo qof inkastoo tirada dadku ayna badnayn haddana dadka Lithuania waxa lagu yaqaanaa shaqo jacayl nidaam iyo ilaalinta dhaqankooda guud caasimadda dalku waa Vilnius waana magaalada ugu weyn uguna dadka badan dalka Vilnius waxay caan ku tahay dhismayaal taariikhi ah jaamacado waaweyn iyo isku dhafka quruxda taariikhda iyo muuqaalada casriga ah taariikh ahaan Lithuania waxay ahayd mid ka mid ah boqortooyinka ugu awoodda badnaa qarniyadii dhexe waqtiyadii hore waxay qayb ka ahayd boqortooyadii Lithuania oo ka tirin jirtay dhul aad u ballaaran oo ka mid ah Yurubta bari qarniyo badan kadib dalku wuxuu galay gacanta qoodihii kala duwanaa ee reer Yurub waxaana ugu dambeyn qabsaday midowgii Sovieti sanadkii 1990kii Lithuania waxay noqotay dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah ugu dhawaaqa inuu ka go'ay midowgii Sovieti tallaabadaas geesinimada leh ayaa noqotay bilowga burburkii midowga Sovieti waxaana Lithuania dib u heshay xorriyadeedii tan iyo waqtigaas dalkan wuxuu sameeyay horumar dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo aad u weyn maanta Lithuania waa dal si weyn ugu tiirsan warshadaha adeegyada tiknoolajiyadda iyo ganacsiga caalamiga ah wax soo saarka guud ee dalka ama GDP wuxuu gaarayaa in ka badan 100 bilyan oo dollar dakhliga sanadlaha ee qofka soo gala wuxuu gaarayaa in ka badan 36,000 oo dollar taasoo muujinaysa heerka nololeed ee wanaagsan ee muwaadiniinta dalkaasi ku nool yihiin dadka shaqeeya ee Lithuania waxay helaan mushaaric celcelisaan u dhaxeeya 1,400 euro ilaa 2,300 euro bishii iyadoo mushaar ku xidhan yahay xirfadda iyo goobta shaqada shaqooyinka la xiriira tiknoolajiyadda caafimaadka iyo injineerinka ayaa ka mid ah kuwa ugu mushaharka badan xagga waxbarashada Lithuania waxay leedahay nidaam waxbarasho oo tayo sare leh jaamacadaha dalka sida Vilnius University iyo Kaunas University of Technology ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan gobolka Baltika arday badan oo caalami ah ayaa sanad kasta u tagta Lithuania si halkaas wax uga bartaan maadaama waxbarashadu tayo sare leedahay isla markaana ay ka jaban tahay dalal badan oo galbeedka Yurub dhaca sida dalalka kale ee midowga Yurub Lithuania waxay bixisaa fursad lagu heli karo sharci iyadoo loo marayo shaqo waxbarasho ganacsi ama midowga qoys qofka hela shaqo rasmi ah ama ogolaansho jaamacadeed wuxuu codsan karaa deganaansho sharci qofka dalka ku nool muddo dheer ee bixiya shuruudaha waxa uu heli karaa deganaansho rasmi ah iyo ugu dambeyn jinsiyadda dalka oo loo ogolaado Lithuania waxay leedahay goobo aad u qurux badan oo ay booqdaan malaayiin qof sanad kasta magaalada qadiimiga ah ee Vilnius Old Town qalcadda caanka ah ee Trakehel Castle deegaanka dabiiciga ah ee Krunian Spit iyo goobta loo yaqaano Hill of Crosses ayaa ka mid ah meelaha soo jiidashada leh ay xiisiyaan dadku Lithuania ma laha buuro dhaadheer sida qaar ka mid ah dalal kale ee qaaradda Yurub si kastaba ha ahaatee meesha ugu sareysa dalka waa buurta Aukashtas Hill oo joogeedu yahay qiyaastii 294 mitir sidoo kale webiga ugu dheer dalka waa Nemunas River kaasoo door weyn ka qaata dhaqaalaha iyo deegaanka cimilada Lithuania waxay leedahay 4 xilli oo kala duwan jiilaalku waa qabow oo mararka qaar baraf badan yeelan kara halka xagaagu yahay mid diiran oo qurux badan isku darka kaymaha harooyinka iyo hawada nadiifta waxay Lithuania ka dhigeen meel dabiici ah oo soo jiidasho leh ugu dambeyn Lithuania waa dal yar marka loo eego quudaha waaweyn ee Yurub balse waa dal leh taariikh qoto dheer dhaqaale kobcaya waxbarasho tayo leh iyo fursado badan oo nololeed
waa dal tusaale fiican u ah sida waddan yar uga mid noqon karo kuwa ugu horumarsan dunida. ku mahadsanid daawadee waqtigaaga aad ku bixisay daawashada muuqaalka. haddii aad wax cusub ka faa'iiday nagu taageer like share iyo subscribe. waan kulmi doonaa muuqaalka kan xiga haddii alla yidhaahdo.